war farxad u leh dadka ku nool magaalada Minneapolis. Jacob Frey ayaa sheegay in qaar ka mid ah ciidamada federaalka ay beri ka bixi doonaan Minneapolis. Waxaan ka sii shaqayn doonaa sidii kuwa haray ay u bixi lahaayeen, ayuu yiri Jacob Frey oo qoraal soo dhigay bartiisa X kadib wada hadal isaga iyo Donald Trump qadka telefoonka ku dhaxmaray. Waxaan hadda qadka telefoonka ku wada hadalnay madaxweyne Donald Trump, waxaana la wadaagay sida Minnesota ay uga faa'iiday bulshada soo galootiga ah, waxaana si cad u weydiistay in howlgalka la soo afjaro. Madaxweynahana waa uu ogolaaday, ayuu yiri Jacob Frey, duqa magaalada Minneapolis. Dambiilayaasha waa in lagula xisaabtamaa dambiyadii ay galeen, balse aan lagula xisaabtamin halka ay ka soo jeedeen, ayuu yiri Jacob Frey. Trump ayaa dhankiisa xaqiijiyay wada hadalka dhaxmaray isaga iyo Jacob Frey, wuxuuna sheegay in horumar ballaaran laga gaaray. Wuxuu sidoo kale sheegay in Tom Homan uu beri la kulmi doono Jacob Frey si wada hadalka u sii socdo. Tom Homan waa la taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump u qaabilsan dhanka socdaalka. Trump ayaana shalay Tom Homan ku amray in uu tago Minnesota kadib dilkii Alex ciidamada federaalka ay ku dileen magaalada Minneapolis. Sidoo kale Donald Trump iyo Tim Walz ayaa saacado ka hor qadka telefoonka ku wada hadlay, waxaana halkaa ka muuqata isu soo dhawaansho laga dareemayo Washington DC iyo Minnesota. Wixii soo kordha shaaciyo wanshow ayaad kala socon doontaa. Muuqaalkan qabo asxaabtaadii la wadaag. Haddii aad igu cusub tahayna follow isoo dhe, like inoo saar, sidoo kalena qaybta commentiga ra'yigaaga ka dhiibo. Waa mahadsantahay.